بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا شانالك يوتيوب كأصلح أبسافي وحان إذن سو قدبين يا قصة آد وعجيب بدن. انت أنا نقودي قلين فضلا سبسكرايب سار شانالك سي أيكو سو قالان مقالة أنسو قليو كمبانيل كتابة سياد أغنو خطو قفك أغو هوري أو داودا شير سياد أولو وذاكتو أصحاب تادا ولا لهي غمان تخصدان وحا كمت نخندونا مركي أو أيسو دغنيستي إذا الشمس كويرت iyo markii Camaar bin Yaasir oo la qabtay oo la keenay madaxda Qurayshta hortooda iyo Bilaal markii oo cadaabayay Umayya oo dhagax weyn caloosha laga saarayay waa qiso aad iyo aad u macaan badan. labadan qof banaanka ku sheekaystaan waxay dhaheen maxamed waxaa la imaaday bidco mid wuxuu dhahay abu sufyaan muxuu sameyn doonaa abu sufyaan wuxuu dhahay middan wuxuu noqon doonaa fitnada oo bani haashim dhalinyartan oo isla fadhiyaan way isweydiiyeen waxay isdhaheen bidci sidee u noqonaa arrintan mid wuxuu dhahay maka way ku cusub tahay arrintan midna wuxuu dhahay laakiin ma kusoo deginino waxyiga xataa muusa ciisa nuux ayagoo isla fadhiyaan albaabka ayaa la soo jukeeyey فينوستي ويدميين محايا لدينتا مركاسو مفافين ولا عبسنايي مركي او الباب كلا فري وحو نخدي صاحب كودا جعفر مركاس ايا ويديي وحالو دهي غعنتا محاد كودا وحو دهي سورة من القرآن ايان غعنتا ان كودا مركاس وفريستي واخريي قرآنكي حاشادا وحو قرنا اذا الشمس كويرت واو اخريي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. خوف كان وحالة يرهبا عمار وحو دهي جعفر مركي آيدان سو دقيسي أديق هالكاس مياد جوكتي كان وها جعفر وحو دهي عقاها هوستيسا أيو كقريري ilkihiina way rugmadeen oo waxaa isku dayay in uu kafaaro gud uu sameeyo aniga oo nool kadibna waxa uu bilaabay in uu kaco ooni hadlo ayagoo meeshii ay fadhiyaan diiqa ayaa soo aadaamay waxay dhaheen waa fajar waxaa loo dhahay Camaar hadda adiga waa bixi kartaa waa fajar maxaa yeelay habeenkiida meesha ayaa fadhiyay waxaa sugayeen ilaa fajar oo ku naqanayo ugu dambeyntii Camaar waa baxay Jacfar waa baxay saaxiibadiisna way baxeen hal ayaa loo baxay cabsi dartiisa maxaa yeelay diinta markaas ma faafin diinta hoos ayaa lagu waday Camaar waa baxay gadaashiisna waa la raacay asagani kama warhaynin ugu dambeyntii Camaar gurigiisa ayaa aaday markii oo guriga soo galay aabihiisa wuxuu dhahay Camaar adiga intee jirtay hooyadaada waa ku walwaleysay xalito dhan soo jeeso intee jirtay xalito markaas ilaahaygi ay caabudayeen waa jabay Camaar aabihiisa wuxuu dhahay ilaahaygi aan caabudayay waa jabay Camaar hooyadiisa wuxuu dhahay waxa maad caabudaysaan waxaan wax la caabudo ma ahan allihii ku abuuray inaad caabudid waayo allihii wax maqlaayay waxna arkaayay waxaan wax ma arkaayo wax ma maqlaayo hooyo Camaar hooyadiisa waxay dhahday Camaar anaga Kacbada waxaan ku aragnaa maalin kasta sanam oo lagu caabudayo gudihiisa iyo banaankiisaba Camaar hooyadiisa waxay u dhahday Camaar aniga waan ku cabsi hooyaa wiilkayga Camaarna waa una saxeeyay hooyadiisa iyo aabihiisa run ayaa u sheegay xaqa waa tusiyay ugu dambeyntii hooyadiisa Camaar way soo rajuucday aabihiisani sidaas oo kale way soo rajuuceen labadooda xaqa markii oo ay ogaadeen Camaar hooyadiisa waxay u dhahday Camaar bax Maxamed u dag garabkaaga Allah galo Camaar sidii ayuu ku baxay hooyadiisa ayadoo faraxsan hooyadiisa ayadoo fiirinayso waxay aragtay Camaar oo laba qofood ay dabaraacayaan oo cadow ah
ugu dambeyntii camaar waa la soo qabtay waxaa la keenay madaxda qurayshta agtooda kabacdi waxaa loo dhahay adiga ikhraleed ku jirtaaye maxamed wax ma akhrin karo waxna ma qori karo qofkaani waa abaa sufyaan hinda ninkeeda camaar wuxuu dhahay laakiinse maxamed waa hadli karaa mid ayaga ka mid ah ayuu imaaday wuxuu dhahay anigaba waa hadli karaa camaar wuxuu dhahay hadalka nebi moxamed ma ahan hadal oo caadi hadalkiisa moxamed waa waxyi hinda waxay dhahday moxamed waxaa ku jiraa riyo qalbigiisa ayaa imtixaanooya camaar wuxuu dhahay haa moxamed waa qof qalbigiisa furan hinda hadalkan markii ay maqashay aad iyo aad ayay u xanaaqday kabacdi waxaa soo hadlay ninkeeda abuu sufyaan wuxuu dhahay kacbada anaga ayaan leenahay sanad walbani anaga ayaan ku xijinaa kacbada maalka oo ka soo galaayani anaga ayaan leenahay sida adiga aad u muleynaysid ma ahan camaar haddana wuxuu dhahay abuu sufyaan anaga waxaan leenahay 300 ilaahay adinkana waxaad rabtiin hal ilaahay kaliya inaad 300 ilaahay aad ka dhigtiin ma anfacaayo ka bacda halka ilaahay oo aad ka dhigaysiin in lagu caabudo meehan haddii adinka aad joogtiin taa'if yemen iyo bisha korkiisa markaas dhammaantooda way wada qosleen markaas kadib waxaa soo hadlay umaya wuxuu dhahay aniga waxaan gatay qofkan oo la yiraahdo bilaal lacagteeda ayaan ku gatay diintiina maxay ku qabtaa camaar wuxuu dhahay khalad waaye diinteena waxay dhigaysaa cad iyo madow inay kulli naftooda hal ay yihiin hinda waxay dhahday diintan adinka aad ku dhaqmoosiin waa bidca addoon la soo gato anaga caadigiini waaye kabacdi umaya wuxuu wacay bilaal kaale ayuu dhahay bilaal waa imaaday umaya wuxuu dhahay haddaan arki doonaa qofka addoonka iyo qofka biliska farqiga u dhexeeyo bilaal waxaa loo dhiibay garbaashka inuu garaaco camaar garbaash ayaa loo dhahay dadka dhan waxa uu dhahooyiin bilaal maad garbaashtid garbaash bilaalna wuxuu garbaashooyo ma laha camaar mar wuxuu fiiriyey bilaal wuxuu dareemay camaar bilaal qalbigiisa inuu oo khashuuc soo galay qurayshta madaxdooda dhammaantooda way isla wada yaabeen camaar wuxuu dhahay bilaal maad i garaacdid bilaal ma garaacin garbaashkii waa tuuray dadkii dhan way isla wada yaabeen camaar wuxuu soo qabtay garbaashkii wuxuu dhahay i garaac wixii lagu amray sameey i garaac bilaal ugu dambeyntii ma garaacin garbaashkii ayaa tuuray kabacdi qurayshta markaas ayaa fadhiga ka soo kaceen abaa sufyaan waa xanaaqay wuxuu dhahay addoommadii aniga aan soo gadanay xataa qalbigooda waa la bedelay miya umaya wuxuu dhahay anaan ku gatay anaan ku cadaabaa umaya ugu dambayntii aad iyo aad ayuu cadaaboyaa bilaal afkiisna kama soo buuxiyo waxaan ahayn axad ilaahay waa keliya bilaal markii dhaho axad umayana waa sii xanaaqaa si xun ayaa usii garaacaa markaas umaya wuxuu leeyahay maxaad leedahay sheeg bilaalna wuxuu ku odhanaa axad bilaal wax kasta oo la weydiiyo wuxuu leeyahay axad yaa waay sayidkaaga axad ugu dambayntii umaya waa xanaaqay waxaas dhahay qofkan dhagax weyn caloosha ha laga saaro asagoo dhagax weyn caloosha laga saaray afkiisa kama herin inuu dhaho axad walaalahayga filimkaani waxaa lagu turjumay studio safi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadabo iyo walaalkiina aslax aaba safi أحد الله أحد Ha iloobina like share comment